maanta way taariikhda tahay 29 bisha December sanadka 2020 aniga ku hadlaya magaca dhammaan ururka saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe ama wariyaasha ka howlgala gobolka waxaan rabaa inaan baaqi codsi baan u diro madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle baaqaasi oo ku saabsan in xuridiisa dib loo siiyo wariye Mahad Axmed Cali Sow oo kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Jowhar isla markaana ka tirsan idaacadda Radio Jowhar sidoo kalena ah wakiil wareedka TV-ga goobjoog ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan rabaa madaxda iyo waliba cid waliba ay qosayso xariga wariyaha in si shuruud la'aan ah xuridiisa in dib loo siiyo waxaan ognahay wariyaha in habeenkii labaad uu ku hoyday saldhigga booliska magaalada Jowhar runtii sharciga ama dastuurka waan ognahay wuxuu dhigayaa in muddo 24 saac gudahood ah in qofkii la soo xira in uu ku helo cadaalad ama in maxkamad loo gudbiyo marka wariyuhu laba habeen ayuu ku xiran yahay saldhigga booliska magaalada Jowhar ilaa haddana aysan jirin cid soo eedeysay oo markaas xirigiisa ku soo eedeysay wax loo haysta ama in maxkamad la geeyay oo ay soo maxkamadeysay isla markaana xukun ku soo riday isagoo markaas maxkamadda u codsanaysa dambiga loo haysta ilaa hadda ma hayno laba habeen ayuu saldhigga ku jiraa taasina ma ahan mid suuragal ah runtii waan ka xunnahay haddaan nahay dhammaan saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe marka waxaan rabaa mas'uuliyiinta iyo waliba cid waliba ay qosayso xariga wariyaha waxaan rabnaa in aan markaa baaq u dirno baaqaasi oo ah in si shuruud la'aan ah wariyahaasi lagu soo deeyo xuridiisana inuu si dhaqso ah inuu ku helo runtii haddii ay jiraan dambiyo uu galay ama dambi haddii loo haystana waxaan ka codsanaynaa mas'uuliyiinta iyo waliba laamaha amniga in ay cadaaladda hor keenaan ama maxkamad ay u gudbiyaan waa haddii ay jirto dambi uu galay oo markaasi maamulka uu ka galay ama shakhsiyaad uu ka galaybo marka si guud haddaan nahay bahda saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan dalbanaynaa in xuridiisa dib loo siiyo wariyaha